السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وهذا أدي هذا مهتسنتين. مانتا وتلاذو وأنا لبضة بيش استقالة سبتمبر سنة كلبضة كن يشان يلباتنك. مقال كانوا حربا إن ندخل وذاقه متكم إذا شنتي قف الصومالي ذا هيد هرانتي بيشي جون سنة كلبضة كن يأفري لباتنك. لقوها لي كيسكي مسوق ناسوقا فيدين أو فيوجر ولعكتي فراها بدنيد لقول صدي oo la xukumay waana gabadha kaliya oo ku jirtay shanta qof ee dambiga lagu helay ayaa la xukumay hadaba imise sano ayaa lagu xukumay waxaan sidoo kale idin wadaagayaa wiil Soomaali ah oo shalay isku dayay duhuradii suuqa Karameel oo ku yaala magaalada Minneapolis wiil kale oo Soomaali ah dhaawac halis ah u geystay wiilkiina waa la qabtay dhibaatada geystay oo hadda xabsiga ayuu ku jiraa hadaba wiilkaasi taariikhdiisa maxay tahay mid ka dhibaatada geystay ayaan idin wadaagaya oo qof garanaya oo ila soo xiriiray isla markaana uu ii sheegay raadkiisa dambe iyo sidoo kalena dhibaatooyinka haysta wiilkaasi dhalinyarada ee Soomaaliga ah arimahaasi ayaan rabaa inaan la socodsiiyo balse marka hore soo dhawaada markii musuqmaasuqa ee ururkii aan faa'iido doonka ahayn ee Feeding Our Future oo lacagihii malaayiinta dollar ah oo hadda 300 milyan kor u sii dhaafaysa lagu lunsaday xilligii coronavirus-ka looguna talagalay in caruurta cunto lagu siiyo maadaama iskuulada ay xirnaayeen lana musuqmaasuqay waxaa jirtay in dacwadii ugu horeysay lagu qaaday 7 qof oo Soomaali ah waxaana ay dacwadaasi bilaabatay horaantii sanadkii 2024 ee la soo dhaafay wayadoo soo gabagabowday horaantii bishii June waxaa dambi lagu helay maadaama 7 qof maxkamadda la saarayay 5 kamid ah ayaa dambi lagu helay 2na waa lagu waayay marka 5tii qof oo dambiga lagu helay ayaa xukunno kala duwan lagu riday qaarkood waxaana ugu dambeysay gabar la yiraahdo Xayaad Maxamed Nuur oo hadda talaadadii la soo dhaafay 3 sano oo xabsi ah lagu xukumay maadaama iyadu 5 dambi ay ku eedeysneed 5tii dambina 3 lagu helay 2na lagu waayay horaantii bishii June ee sanadkii 2024 Xayaad waxa lagu helay dambi ah wire fraud maadaama ay abuurtay dokumentiyo been abuur ah loo dirayay in ururka Feeding Our Future kadibna wasaaradda waxbarashada uu dirayay sidaasina lacagta ay ku helayeen Xayaad Maxamed Nuur iyo walaalkeed Cabdimajiid Maxamed Nuur ayaa labaduba kiiska isku la jiray labadana dambiye kala duwan ayaa lagu helay marka waxaa jirta in sidoo kale Xayaad la yiri lacag ku dhawaad 47 milyan oo dollar ah inay dib dawladda ugu soo celisa lacagtaas waxay u muuqataa lacagta dhamaanba ay ku eedeysnaayeen 7 qof laakiin sida qoran hadda waxa la leeyahay lacag intaasi la eg waa inay soo celisaa Xayaad maadaama hadda hal sano ka badan ay xabsiga ku jirtay arintaasina waa loo qiimeynaya marka waxa laga yaabaa sanad amaba wax ka yar in ay xabsi ku jirto markaasi kadibna la soo daayo Xayaad waxa dokumentiyadaasi been abuurka ah ay ku sheegaysay in ilaa iyo 20 goobood oo kala duwan oo guud ahaan gobolka Minnesota ku yaala ay ku quudinayeen caruur boqolaana hadiiba aysan ahayn kumanaan arintaasina waxa ay jirtay in hal mar ay soo dirsadeen lacag gaaraysa 2.2 milyan in la siiyo bishii January ee sanadkii 2022 marka Xayaad waxa la leeyahay waxa soo geliyay walaalkeed Cabdimajiid ayaa arintan lugaha u soo geliyay uuna tababaray si dokumentiyadan been abuurka ah ay u sameeyso Cabdimajiid ayaa markii hore ku jiray isla markaana iyadana soo geliyay Cabdimajiid isaguna waa qofka kaliya oo hadda 5tii qof ee dambiga lagu helay oo aan wali la xukumin Cabdimajiid isaga 13 dambi ayuu ku eedeysnaa 10 ayaa lagu helay 3na waa lagu waayay sidoo kalena waxa uu ku jiraa dadka ku eedeysan kiiskii laaluushka la isku dayay xirbeegtida in la laaluusho oo 120,000 oo dollar ah la siiyo 5 qof ayaa kiiskaasi ku eedeysnaa 5tooduba dambigooda waa ay qirteen laakiin xukunkooda wali waa uu dhiman yahay marka Cabdimajiid tii lagu helay oo Feeding Our Future na wali lama xukumin tii kale oo laaluushka uu ku lug lahaa uu qirtay dambigeedana wali lama xukumin sida muuqata marka waxa ay hadda Xayaad noqonaysaa qofka xabsiga ugu yar lagu xukumay 4tii qof ee ilaa ay hadda xukunka lagu riday waxaana ugu horeeyay Maxamed Ismaaciil oo isaga ku eedeysnaa 4 dambi oo 3 lagu helay midna lagu waayay waxa la xukumay bishii October 15 sanadkii 2024 12 sano oo xabsi ayaa lagu xukumay waxaana ku xigay Mukhtaar Shariif oo isagana 6 dambi uu ku eedeysnaa 4 lagu helay 2na lagu waayay waxa isagana lagu xukumay 210 bilood
oo u dhiganta 17 sano iyo bar oo xabsi ah bishii January 24keedii ee sanadkan 2025 ayaana la xukumay. Waxa ugu dambeeyay Cabdicasiis Faarax oo isagu ahaa ninka dambiga ugu badan lagu helay, waxa uu ku eedeysnaa 24 dambi, 23 kamid ayaa lagu helay, hal dambina waa lagu waayay. bishii la soo dhaafay 6deedii ayaa 28 sano oo xabsi ah lagu xukumay. waxaa sidoo kale u dhiman xukunka laaluushka uu ku lugta ahaa uu dambigiisa qirtayna weli waa u harsan yahay. marka waxay hadda xayaad noqonaysaa gabadha keliya ay ku jirtay 5taasi qof ee dambiga lagu helay oo ah qofka ugu dambiga yaraa, isla markaana xukunka ugu yaraa lagu riday maadaama 3 sano oo 1 sano ka badan ay hadda xabsi soo liqday. marka waxaa laga yaabaa sanad iyo barba inay xabsiga ku jirta, markaasi kadibna ay xabsiga ka soo baxdo. iyadu ma aysan ku lug lahayn kiiska laaluushka la isku dayay xeerbeegtida in la siiyo, laakiin dad kale oo iyada dambiga lagula helay oo walaalkeed uu ku jira ayaa kiiskaasi laaluushka ku lug lahaa. marka 73 qof ayaa ilaa iyo sanadkii 2022 markii baaritaanka kiiskan Feeding Our Future la bilaabay dacwad lagu soo oogay, walow intooda badan ay dambigooda qirteen, laakiin intooda badanna weli lama xukumin maadaama qofku markuu dambigiisa qirto xukunka laga qafiifinayo. wayna arki doonaa dadkaasi 50 ka badan ee dambigooda qirtayna xukunada kala duwan oo iyagana lagu ridi doono. laakiin waxaa jirteen haweeneydii madaxda ka ahayd Amy Bark ururka Feeding Our Future iyo Salim Saciid oo milkiilayaasha maqaayadda Safari ka mid ahaa, iyagana dhammaadkii bishii March ee 3aad ee sanadkan dambi lagu helay in iyagana xukunkooda weli uu harsan yahay. marka xukunka ugu badan labadaasi qof ayuu ku dhici doonaa maadaama hormuud ay u ahaayeen kiiskaasi musuqmaasuq. iyagana waan sugi doonaa xilliga xukunkooda uu dhici doono maadaama dambi lagu helay haddana ay xabsi ku jiraan. ugu dambeyntii shalay duhuradii suuqa Karameel oo ku yaala magaalada Minneapolis, isla markaana Soomaali fara badan ay dukaamo ku leedahay oo ku ganacsato, ayaa waxaa ka dhacay shil la yaab leh. wiil laga yaqaano suuqa oo loo yaqaano DJ Karameel ayaa waxaa ceejo ku dhagay wiil la yiraahdo Cabdikariim Cabdulle Aadam oo 35 jir ah. waxa uu isku dayay inuu nafta ka qaado. wiilkaasi waa uu miir daboolmay, markaasi kadibna madaxa sidaad aragtaan ayuu shamiitada ugu garaacay. banaanka suuqa Karameel ayay arrintan ka dhacday. wiilkaasi waa uu ceejiyey, waa uu miir daboolmay, dhiig fara badanna waa uu ka daatay. isbitaalka ayaa loola cararay, weliba dhaawac halis ayaa soo gaaray, isbitaalka ayuuna ku jira. marka wiilkan Cabdikariim oo dhibaatada geystay isagana waa la soo xiray. sidaad aragtaan shalay abaara 3dii galabnimo ayaa xabsiga la dhigay, iyadoo arintana shalay duhuradii ay dhacday. marka lama garanayo labadan qof ma isgaranayeen, ma dhibaato ka dhaxaysay, ma shil iska random aha. wiilkan dhibaatada geystay la yiraahdo Cabdikariim qof garanaya ayaa saaki ila soo xiriiray maadaama xalay bartayda Facebook aan soo geliyay. wuxuu ii sheegay wiilkan markii hore gobolka Arizona inuu deganaa, inuu qof midig-geliyay oo la xiray, sidaas darteedna sharcigii loogu diiday. muddooyinkii ugu dambeeyay wuxuu ku noolaa magaalada Sioux City ee gobolka Nebraska, xitaa guri la'aan ayuu ahaa. maqaayadaha Soomaalida ayuu inta badan cunto ka cuni jiray. qofkii la soo xiriiray xitaa wuxuu ii sheegay inay isku dayeen bal inay guri u kireeyaan maadaama ninkan drugs uu bartay. marka sida muuqato qofkan qof maskaxiyan fayow ma uusan ahayn, qof drugs isticmaalayay oo guri la'aana, sharci la'aana, xitaa xaas ay isqabeen ay kala tageen oo hal canugu dhashay sida la ii sheegay. sidaas darteed wiilkaasi shalay dhibaato weyn ayuu u geystay. DJ Karameel la yiraahdo hadda isbitaal ayuu ku jiraa. Cabdikariim isagana waa la soo xiray oo hadda xabsi ayuu ku jiraa. wayna arki doonaa arrintiisana sidoo kale halka ay ku dambaysa. laakiin shilkaasi waxa uu muuqdaa shil labadan qof aysanba isgaranaynin oo qofkan uu isaga dhagay, isla markaana ceejo uu ku qabto, xitaa u muuqatayba inuu nafta ka qaadayo. markii dambena madaxa shamiitada ugu garaacay ilaa iyo dhiig fara badan uu ka daatay oo isagoo suuxsan wiilkaasina isbitaalka loola cararay. marka waan arki doonaa arrimahaasina sidoo kale waxyaabaha ka soo kordha. laakiin hadda Cabdikariim Cabdulle Aadam oo dhibaatada geystay waa uu xiran yahay. isla shalaba waa la soo qabtay, booliska ayaa gacanta ku soo dhigay. kulli dadkii Soomaalida ah ee meesha joogay ayaa booliska wacay, isla markaana isagoo meesha ka fogeynaya la qabtay. wiilkiina isbitaalka ayaa loola cararay. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiina Cilmi Waaro idinla sidaa iyo nabadgelyo.